بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo fahda kala duwan ee warbaahinta qaranka. waxaan codsan lahaa maadaama aynu ku jirno xaalad corona in la yara kala durko oo la yara taxadiro. inta kadib tan iyo intii ciidamadeena qalabka sida ay soo afjareen isla markaana kala eriyeen maleeshiyaadkii عاصمة ومدة الصومالية دحدي هذا كذا واقعين عند ولد الشرين تلكنا أيوة مسؤول كيهين وحنسوق على وراقه همبليو يدي رجلينا وينوجو بورينا إنه أتكيسنا اللي بتجليه دين يدولد نودين وراقها سوحي نجسوق على وضم بدنا إنه صاحبنا هاي كارهان وضم عرفتها ومركي مغلين عاصمة دحدي دول جليه هي دولد متشرتو هادور وري حالي هي وسارد دينا رمها دبدو soo saartay warqad faahfaahsan oo ay ku soo dhaweynayaan talooyinkii ka yimid saaxiibada caalamka uguna balbalaarinayaan sida wax u dhaceen laakiin halkan waxaan idinku yeeray in shacabka Soomaaliyeed ay noo sheegno ay la wadaagtaan in waraaqahaas ay ku dhex jirtay warqad midab kale leh oo mustaqbalka dalkeena way kaysiinaysay mid madow muddo aad u dheer Soomaaliya iyo dawladda Imaaraadka Carabtu waxa ka dhaxeeyay xiriir walaaltinimo mid dhaqan iyo mid ganacsi oo waliba aad u qoto dheer xiriirka labada dal iyo labada shacab waxa lagu tilmaami jiray walaalihii runta ah dadka Soomaaliyeed waxay muddo dheer u hayeen dawladda Imaaraadka Carabta iyo shacabkeedaba qadarin aad iyo aad u weyn Ilaahay ha u naxariisto Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan wuxuu ku qornaan jiray qulubta shacabka Soomaaliyeed aadna way u jeclaayeen sababtoo ah weligood wax dhibaateynaya kuma sameyn wax taraya mooyaan iyadoo waxa soo dhimi jiraan haddana muddooyinkii ugu dambeeyay kadib markii madaxda dawladda Imaaraadka u qaabilsan arrimaha dibadda ay u dhaqmeen si aan ka turjumayn walaalnimadii soo jireenka ahayd ee shacabka Soomaaliyeed iyo dawladdoodaba waxa galay shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyaba waxa galay shaki ah oo inay isweydiiyaan in Imaaraadku la jiraan iyo inay ka jiraan ummadda Soomaaliyeed habdhaqanadoodii dulqaad iyo ilaalinta walaaltinimada ayaa dawladda Soomaaliyeed ku khasbay inay markasta wanaajiso xiriirka labada dal si kasta oo loo tuhmayay oo loo tabanayay oo ay wuxuu muuqdeen haddana qadarinta walaalnimada iyo taariikhda iyo xiriirka ayaa dawladda ku khasbayay in ay ilaaliyaan wanaagga haddaba maanta waxa dawladda Imaaraadka ka soo baxday warqadda aan kor u soo sheegay midabka kala lahayd oo aan meel ka waafaqsanayn xiriirka diblomaasiyadda qaynuunka caalamiga walaalnimada labada wadan iyo dhaqanka Carbeed ee ku dhisan is-ixtiraamka warqadda Imaaraadka waxa ka muuqda inaysan aqoonsanayn dawladnimada Soomaaliya oo ay dawladda inkaraya taasoo abuuraysa in hadalkii halkan laga lahaa dorhaadi ahaa dawladda ma jirto iyo warqadda dawladda Imaaraadka ka timi ay isla socdaan warqadda waxa ka muuqda in Imaaraadku uu ka rabo Soomaaliya inay noqoto sida Yemen iyo Liibiya oo kale oo ay ka abuurto fawdo iyo barakac waana waxa shacabka Soomaaliyeed ka feejigan yihiin sababtoo ah filimada horarka ah ee fawdada ah ummadda Soomaaliyeed hore u soo daawatay mar labaadna ma rabaan inay filimada dib u daawadaan argagax ee dawlad laanta warqadan waxa shacabka Soomaaliyeed iyo dawladoodaba u cadeysay tuunkii ay qabeen ahaa saraakiisha arrimaha dibadda Imaaraadku inay qayb ka ahaayeen dibindaabiyadii dalka lagu hayay sanadihii la soo dhaafay oo dhan dibindaabiyadaas oo si cad uga hor imanaysa qaynuunka caalamiga international lawga waxaana waqtiga loo baahdo iyadoo cadeynteeda wadata soo bandhigi doona hay'adaha ay khusayso waxaana ka dhalan kara sharci jabinta mas'uuliyad waxa kale oo warqadan ka soo baxday dawladda Imaaraadka gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ay shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed dib u xusuusisay maalmihii la saxaxay heshiiskii 17 Sebtembar 2020 ee qaar ka mid ah madaxdii heshiiska saxaxday isla maalmihiiba ay u safreen Imaaraadka kolkii ay ka soo laabteenna ay la soo noqdeen iyagoo shuruudo cusub wata mar walbana keenaya caqabado hor leh dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed
waxay ka fajacsan tahay colaadda intaas leeg ay saraakiisha imaaraadku u qabaan dadka Soomaaliyeed ee jecel walaalahooda imaaraatiinta dadka Soomaaliyeed waxay isweydiinayaan maxay walaaladeen ugu diidan yihiin nabadda horumarka iyo wanaagga annaguba intaa in leeg ayaanu la jecelnahay shacabka Soomaaliyeed waxaan u cadeynaynaa in hadalka maanta imaaraadku soo saaray uu yahay mid qarannimada iyo jiritaanka dalka baabiinaya waxaana muhiim ah dadka Soomaaliyeed inay fahmaan waxaan la hadlayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inay fahmaan waxa la damacsan yahay dagaal sokeeye inuu dhaco si loo xalaalaysto dhulkooda iyo baddooda oo haddaba muran la geliyay waxa laga yaabaa in dadka qaar yiraahdaan haddii walaaladeen nagu qaldameen inagu man ka roonaano oo man ka aamusno oo ayaynaanu jawaabin cajiib haddii maanta aan ka aamusno dal dhan oo walaalaha shaqiiq ah oo leh statement-koodii baan rabaa saddexda erey ku jireen haddii sheego dagaal iyo qalalaasi ayaa hadda ka socda there is ongoing violence in Muqdisho hadduu socdaabay dib ku leeyahay dagaal baa socda xaaladda Muqdisho way ka sii daraysaa territory bay noqotay way ka sii daraysaa Soomaaliya dawladda kama jirto way dhamaatay inteeran baa loo guuray wixii ka soo baxnay 2012 ayay rabaan inay nagu celiyaan dawlad laanta hadallada warqadda ku qoran waxay xusuusiyeen markaan arkay xalay hadallada ku jiray heestii Abwaan Cabdi Qays ahaa ku wiirsaad lahayd nolosha waaye aniga wadkayga iyo waqtigaygu galino waynuhu idaayay waxba iyo lama tahay waxa la wax runtii warqadda ku qornay la hareen ma garanayo aniga wadkayga iyo waqtigaygu galino waynuhu idaayay waxba lama tahay dagaal iyo qalalaas ayaa ka socda xamar bay dhaahdeen xaaladda Muqdisho way ka sii daraysaa bay dhaahdeen Soomaaliya dawladda kama jirto ay dhaahdeen haddii aan waxaas ka aamusno soo jawaabtu noqon mayso xigmadii Carbeed ee oran jirtay as-sukut calaamatu rida aamusku waxa lagu garto inaad raali ka tahay waxaad ka aamustay nidaar qabaanigii reer Siiriyana waa sii fogeeyay aamusko sukuutka wuxuu yiri waxa weeye waa ihtiyaaj iyo wajh iyo alam wuxuu ku aamus hadaad ka aamusto gartaada waxay ka dhigan tahay inaad hoos u dhigtay qabkaagii iyo qiimahaagii taasna haddii aanu Soomaalinahay inaanu qabkayga iyo qiimahayaga hoos u dhigno dhaqanna uma leehin hidana uma leehin sinaan ayaanu dhaqan u leenahay inaanu bini'aadamka la simanahay Soomaaliya waa dal xor ah oo madax bannaan sida uu dhigaya axda qaramada midoobay United Nations Charter madax bannaanida dalna laguma baxad gudbi karo madax bannaanidu kuma xidhna dhaqaale bad iyo balac iyo juqraafi toona dalka ugu yar ee 100 kuna iyo ka ugu badan ee 1.5 billion kaahi according to the international law waa isku xuquuq dadku way sameeyeen inna caarma dheer sovereigns are equal and have equal sovereignty all states are equal and have equal sovereignty dawladda Soomaaliyeed waxa ka go'an inay difaacdo madax bannaanideedaas qarameed waana ka tanaasulay arrinta doorashooyinka oo warqadda ku qoray waxaanu cadeynaynaa inay tahay arrin khusaysa arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya arrimaha gudaha ee Soomaaliya mala jiro dal ogolaanaya in qof waliba ka hadlo doorashada dalkiisa dal qura oo ogolaan kara in doorashadiisu ay noqoto timir xabaal taala ma jiro sababta darteed waxaan rabnaa inaan u sheegno dhammaan dunida saaxiibada iyo wadamada aan saaxiibka ahaynba in arrinta doorashadu ay tahay arrin gudeed internal and domestic affairs waxaan uga digayaa cid kasta oo ku fikiraysa faragelin inay dib uga joogsato ciddii aan wanaag iyo horumar nagala shaqaynaynin fadlan dib inagu filan faraq iyo gacmaha ayaan ku haysanaa oo cadow baanu dagaal kula jirnaa ee dib kale hanoogu darin haddii aan horumarkayga iyo iftiinka dawladnimo ee noo soo baxaya ku farax gelinaynin ma samayn karno waxa ku farax gelinaya oo ah inaan istilno oo qaxno oo gumowno
qofka aanay farax gelinayn horumarkeena iyo dawladnimadeena maanta waxa farax gelinaya waa garanayna taana ma samayn karno oo dib uma laaban karno ugu gabagabadii walaalaheena imaaraadku iyo warqadoodii xalay ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda iyagoo u malaynaya inaanaan arkayn habdhaqankooda waxay xusuusinayaan xigmaddii mawlaana jalaaludiin ruumi ee ahayd look at my eyes they are small but they say animated things indhahaygu way yaryar yihiin laakiin wax badan bay u jeedaan laga yaabaa inay isleeyihiin Soomaaliya waa dal soo koraya oo soo dhismaya soo kabmaya laakiin wax badan ayaa inoo muuqda oo inuu jeednaa ugu dambayn iyadoo waxaa soo dhan lagu sameeyay annaga oo ah dal iyo dad ka soo kabanaya burbur iyo dhibaatooyin dagaal oo aan rabin inay dib ugu laabtaan jidkii foosha xumaa waxaan dawladda walaalaha ee imaaraadka ka rajaynayaa inay noo fasirto hadalka gefka ku ah qarannimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed khaladka ay gashayna ay ka cudur daarato marhabno kelmadeeda ugu dambaysa u fiirsada marhabno in jiilasha soo socda ee carbeed aynu uga tagno godob iyo taariikh madow oo dhaxalsiisa inay noqdaan qaar aan isu hiilin oo isnacab marhabno in jiilasha soo socda ee carbeed aynu uga tagno godob iyo taariikh madow oo dhaxalsiisa inay noqdaan qaar aan isu hiilin oo isnacab aad iyo aad baa u mahadsantihiin su'aaluhuna way inoo furan yihiin waxaa tiri dawladda Imaaraadka qoraalkeeda waxa ku jira in dagaal uu Muqdisho ka socdo madaafiicdii iyo rasaastii habeenka dhaweyto caruurta iyo waayeelka wadada ka sameeyay magacan dagaal ahayn oo aad u bixinaysaan baa jira arrintaa waa tii ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble sida fiican uga hadlay dhammaan caalamkana fariintaasi way gaadhay in magaalada dhexdeeda lagaga dhawaaqay inaan dawladda jirin oo maleeshiyad yiraahdeen dawladda ma jirto annaga meesha ka dawladda marka su'aasha waxaan maleynayaa jawaabtii su'aasha aad qaatay ra'iisul wasaaraha ka jawaabay dawlad kale oo aqbali lahayd dunida State House-ka Nairobi ama aradkiile odaga Addis Ababa ama Djibouti haddaad madaxtooyada horteeda ayaan oranayaa dawladda ma jirto adaa garanaya magacaad u bixinayso waa maanta wasiir sidee lagu magay ala saan waay yaad risaalan ka socda sidee lagu aamin karaa doorashada mar haddii ay caburaysiin shirkooyintii xilka madaxweynaha u sameysay aad xabadeenaysiin u diidaysiin inay banaan baxaan sidee lagu aaminaa hadda ma adsanta cali su'aashaasi hadda waxaan maleynayaa inaad topic ka yar baxsan tahay ma dhageysan baan maleynayaa statement-kaygu wuxuu ku saabsanaa iyo warkaan sheegayaa arrintii warqadii ka soo baxday dawladda aynu walaalaanahay imaaraadka kaasoo aanu niri waxaan u baahannahay bal inaad noo fasirtaan oo aad dib isugu noqotaan oo wixii aad qorteen waa wax la aqbali kara maahee waa cudurdaar ka bixisaan maya waxa dawladnimada hadama waxaad rabtaa in la yidhahdo dawlad ma jirto waxaad rabtaa adigu miyaad rabtaa adigu سعادة وزير هدي أي فسر ويان إمارات هدي أي فسر ويان taladan u jeediseen oo warqada inay idin fasiraan iyo statement ka soo baxay maxay idin meeyay dawladda Soomaaliyeed anagu diblomaasiyaddu channel-kaas ay leedahay waxaanu leenahay waxaan bal horta la fasiro dib ay isugu noqdeen madax waaweyn buu leeyahay dawladda Imaaraadku shuyuukh bay leedahay warqadan wasaaradda arrimaha dibadda laga soo qoray kulli waxaan filayaa in wax ka soo noqon doona waxa meesha ku qorayna wax la aqbali karayo dal qurina aqbali karayo dunida ma بصير محمد مشرف وحان كسودا ورقدان waxay dib u socotaa barnaamijii jumcihii ku dhawaaqay musharaxiinta iskoorimaadkii ay ka soo saareen mar labaad waxay ku dhawaaqeen in barnaamij kala qaban doonaan taas maxaa dawladda ka horjeedaan hadii dhacdo barnaamij kale in la qabto basidii in loo wajaho jumcihii mise ka duwan xukuumaddu go'aan bay soo saartay inta xaaladan corona lagu jiro in la joojiyo suuqaatinada xukuumadda go'aankeedii golaha wasiirada ka soo baxayna isma bedelin waxa la fulinaya ciidamada amniga ay fulinayaan wata waxa runtii nasiib darraayna waxa idin dimash maleeshiyad yimaadaan oo baashu aad u qarribinto laakiin go'aankeena xukuumadda ee golaha wasiirada ilaa go'aan kale uu yimaado oo bedelo sidiisii uu intact uu yahay aad baad u mahadsantahay su'aasha سعادة الوزير مقعي وعيس محمد أحمد waxaan ka socdaa VOS TV isla su'aasha la xiriirta arrimaha doorashada marka aynu isdul taagno madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya 17 bishan wuxuu soo saaray
إعلام شر مقدشو كدعو intuu dhaxaysa 18 ilaa 19 shirkaasi muusan qabsoomin waqtigiina loo asteeyana waa la soo dhaafay dowladda federaalka maxaa kaga qorshaa maadaama ilaa hadda madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland aysan muqdisho soo xaadirin inta kale ay soo xaadireen runtii inkastoo aanay xiriir la lahayn topigeena oo aynu hadda ka hadlaynay warqadii ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda haddaan in yar ku noqdo waad aragtaa tanaasulka shacabkii Soomaaliyeed iyo dunida oo dhan way aragtaa hadda madaxweynuhu markii hore garow soo jeediyay waxa la codsaday Muqdisho haddana in Baydhabo la isugu tago gudidii waa lagu soo heshiiyay gogol kale u dhigay mar walba waxaynu rabnaa in doorasho inoo qabsanto dawladda waxa ka go'an iyo hoggaanka xukuumadda in dalkan doorasho ka dhacdo haddii waad arkaysaa in la jiidayo oo aan la rabin in doorasho dhacdo waxa la rabaana waxa weeye in dib laynoo celiyo innaga waxa inaga go'an in doorasho dhacdo wax kasta oo tanaasula madaxweynaha wakiil baarlamaanka ka hadlay waad xasuusataa inta jeer uu tanaasulay odogay ilaa haddana waa sii wadaynaa ma naqaano inta dad socon doono waan wadaynaa laakiin inta doorasho dhacayso ee la isu imanayo ilaahayna waxaan ka rajaynayaa dalkeena oo barwaaqo ah doorasho ka dhacday si nabadgelyo inoogu dhacday oo aynu wada guuleysanay ilaahay ka rajaynayaa niyadana waxaan rabaa in shacabku khayr u sheegaan dadka meelaha wax ku qorqoraya iyo waaqacu waxaan rabaa inay kala duwan yihiin aan sheego magaaladu waa nabad gacan ammaan bay ku jirtaa waxaynu u samaysanay ciidamada amniga inay amniga aynu ku seexano oo ay shacabku ku seexdaan shaqadiina weynoo hayaan dalkuna weynoo degan yahay hawshana si fiican u socotaa dhaqaalaheennuna wuu socdaa dadka jecel inaynu dib u noqono waxaan rabaa inaan fursad la siiyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin markasta maamul goboleedyadii dowladda dhexe ay isugu imaadaan maamul goboleed baa wax tabanayo caqabad ma taagan wixii waxa noqdaan wax lagu kala tago silsila loo meeshiyo halkay salaadu iska qaban qaadaan maxay siiyeen waxa qaldan ee la qarqarinayo wallahi anagu de tuhumadan u baan qabnaa haddaba aan sheegayo gacmo shisheeye ayna ku jira laakiin de gacmaha shisheeye ugu jira doorashadeena iyo dadaalkeena iyo halgankeena iyo geediga halka aynu rabno inaynu u raro inagama baajinayso waa dadaalina waa wadayna tanaasulka ummadda oo dhabe haddaba waa la wada arkay cidda wax diidan inaynu hore u socono laakiin waxaan rabnaa in yani xaaladana qof waliba oo Soomaaliya oo arko yiraahdo